بسم الله. السلام عليكم وسنف الحسن وإذن لك سود هذا تاريخ الشيخة وقيبتي لبعض شيخ السحاق وكل شيء مجالة سمارة إدلك عراق كتالة سنة كي أفر بقول يسدادي ستيتن هجرة مجالة سمارة وحيا هانترتي عاصمة ماملك عباسيين تا سنده لبا بقول يكوبي لاتنكي إلا لبا بقول تضباط يسدادي هجرة كهر إنتان عاصمة لوسو وريتين مجالة بغداد waxaana muuqata inuu sheekh saxaaq magaaladaasi ku soo barbaaray kuna bilaabay barashada diinta islaamka iyo afka carabiga hase ahaatee duruufuhu ma saamixin inuu magaaladaasi ku sii noolaado waayo isagoo weli caruur ah ayuu awowgii go'aansaday inuu Ciraaq ka haajiro oo uu iskaga guuro si uu uga fogaado meelaha maamulkaasi ka wada cadaadinta iyo xasuuqa oo markaa Ciraaq ay dhibaatooyin badan ka jireen xilliyadaasi qoraalada ka waramaya waxay si faahfaahsan uga waramayaan cadaadiska iyo xasuuqii lagu hayay dadka ahlul baytka ama dadkaasi xasan iyo xuseen ku abtirsada gaar ahaan culimada waaweyn taasoo abuurtay inay culimo badani isqariyaan ama ay ka haajiraan dalka Ciraaq sanadkii 498 hijrada ayuu Maxamed bin Xuseen oo awow u ahaa sheekh saxaaq ka soo haajiray magaalada Samaara ee dalka Ciraaq waxaana la socday dhammaan xaasaskii caruurtiisii iyo wixii ay sii dhaleen oo isu geyn tiro koodu kor u dhaafay 9 qof waxaanay u soo haajireen magaalada Madiina 9 inamood oo 3 bahood kala ah ayuu dhalay Maxamed bin Xuseen oo awow u ahaa sheekh saxaaq waayahay maanta intaasaan ku joojin doonaa wayno qaybteena dambe nabaday